lamaano u dhashay dalka India ayaa cunugooda yar iibiyay si ay u helaan iPhone 14 intaan u gudagalin sheekada hadii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid gobol ku yaala dalka India ayaa dadkii ku noolaa waxa ay la kulmeen argagax kadib markii ay ka war heleen lamaane gobolkaasi ka soo jeeda oo iibiyay wiilkooda yar si ay u helaan mobilka iPhone 14 warbaahinta dalka India ayaa si weyn u qortay sheekada lamaanahan booliska ayaa ka war helay sheekadan waxayna aadeen gobolkii laga soo sheegay iyaga oo u kurgalay in ay gacanta ku soo dhigaan lamaanahan si ay cadaalad ula tigsadaan markii booliska ay gacanta ku dhigaan lamaanahan mid kamid ah oo ah qofka haweeneyda ah ee dhashay wiilka yar ee 8 bilood jirka ah ayaa sheegtay in ay iibisay cunugeeda yar oo 8 bilood jira waxayna ku sheegtay sababta ay u iibisay si ay u hesho mobilka ay soo saarto shirkadda Apple ee loo yaqaano iPhone 14 waxay sidoo kale sheegtay in sababta ay u doonayso mobilkaasi uu yahay in ay ku madadaaliso dadka ku xiran Instagram-keeda si ay ugu soo duubto muuqaal xiiso badan iyo safaro ay qorsheenaysay in ay gasho lamaanahan ayaa waxa dariskooda ay ka war heleen mar qurax cunuga oo ka maqan guriga waxayna ogaayeen qayb ahaan ama dhaqaal ahaan halka ay joogaan reerkan oo hadda haysta iPhone 14 booliska oo arintan ku baraarugay ayaa sidoo kale baadi goob u galay qofka laga iibiyay cunuga yar ee 8 bilood jira waxayna gacanta ku soo dhigeen booliska naagtii ama qofkii haweeneyda ahaa ee laga iibiyay wiilka yar ee 8 bilood jira aabaha qoyskan oo baxsad ah booliskana aysan wali gacanta ku soo dhigin ayaa sidoo kale waxa laga war helay in uu qorsheenayay in uu iibiyo gabar uu dhalay oo 7 jir ah qoyskan waxa ay mid u iibsadaan ilmahooda si ay u helaan iPhone 14 iyo dhaldhalaal kale oo adduunyo